kulankan uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan waxa uu ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee degmada ujeedkiisu waxa uu ahaa isxog waraysi uu duqa degmada Boosaaso uu la yeeshay maantay agaasimayaasha waxaha kala duwan ee dawladda hoose gudoomiyaasha afarta xaafadood ee magaalada iyadoo ay goobjoog ahaayeen ku xigeenka duqa degmada iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Boosaaso Maxamuud Cabdullaahi Axmed waxaana kulankan isla xisaabtanka uu socday saacado badan iyadoo la iska xog waraystay shaqooyinka degmada ay u hayso bulshada iyo in la dardar galiyo dakhliga degmada gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Boosaaso sidoo kale waxa laga dhageystay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay ka shaqeynayeen xaafadaha waxayna ay sheegeen inay wadaan hormaro ku aadan bilicda magaalada sida barnaamijka la magac baxay geed beer oo ay wadaan mas'uuliyiinta xaafadaha iyadoo magaalada Boosaaso xaafadaha iyo waliba jidadka halbowlaha u ah magaalada ganacsiga Puntland laga dhigi doono in dhirar lagu beero sidoo kale waxyaabaha duqa degmada Boosaaso uu ka dhageystay waxyaha kala duwan ee dawladda hoose ee degmada Boosaaso waxa kamid ahaa shaqooyinka maalinlaha ah sida ololaha barnaamijka nadaafadda magaalada Boosaaso iyo in kor loo qaado bilicda magaalada agaasimaha qorsheynta dawladda hoose ee degmada Boosaaso Cabdisaaq Qambi ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulankan markuu soo dhamaaday waxa howlka dawladda hoose degmada Boosaaso nooga qabsoomay shirkii arbacalaha ahaa sida caadadeed waxa shirka gudoominayay guddiga fulinta degmada Boosaaso gudoomiyaha ku-xigeenka xogayaha degmada Boosaaso ajendaha shirku wuxuu ahaa isxog waraysi dhammaan waxyaha dawladda hoose gudoomiyaasha afarta xaafadood waxa shirka furay kusimaha gudoomiyaha degmada Boosaaso kana warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu kusimaha ka ahaa degmada iyo gudoomiyaasha agaasimayaasha ka warbixiyay shaqadii ay u hayeen degmada sidoo kale gudoomiyaasha xaafadaha iyaguna warbixin kooban oo dhameystiran afarta xaafadood shaqooyinkii ay qabteen muddadii ay shaqeynayeen 3 bilood ahayd waxyaabihii feedback ahaa oo ka soo laabtay ay ka warbixiyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ay soo gudbiyeen gudoomiyaasha xaafadaha waxa kamid ah horumarinta magaalada oo ugu dameeyay mashruucii laga daafuray xaafadda Buurcad nalka daar geed beer luuq xir qorshayaal badan oo laga filayo gudoomiyaasha xaafadaha hadda ay soo socdaan waxyaabaha ugu badan oo shirka looga hadlay waxa kamid ah kobcintii dakhliga degmada Boosaaso horumarinta bilicda nadaafadda markaasna waxa warbixin kooban dhammaan gudoomiyaha xogayaha iyo agaasimayaasha gudoomiyaasha xaafadaha ba siiyay gudoomiyaha warbixin kooban oo ku saabsan safarkiisii dibadda kaas oo isugu jiray shaqo iyo fasax iyadana waa laga dhageystay si kastaba ahaatee kulankan maanta ka qabsoomay xafiiska gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa ahaa isla xisaabtan ku aadanaa shaqooyinka degmada Boosaaso Yuusuf Maxamuud SBC Boosaaso anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir